inaan ka jawaabo arrin su'aal liiga soo weydiiyey gabadh Mooryaan ku guursaday Jabuuti arrinkaa waan ka jawaabayaa oo si fiican baan uga jawaabay waxaan kaloon rabaa inaan xaal iyo apology ka bixiyo xunqaacadii Ismaaciil Cumar Geelle uu ku sii daayay beesha daarood وعلوشيسا وحي كجري وكو أفوفي بان ربا إنان حال كبحيون وشيغو إنان أنقو لقبي إذن كان وحار إنك عدسان إياه هدي عدكي قاسيدين سو قادو إنا دي قارسيسان عداي كسعود هورتا نين سوماليا أو أقول أو نين سوماليا أو شرف إيا كرامت إيا عيسي أو رير مرتبط لكسو تشيدا أو قبيل مرتبط لأ إنو أقولادو موريان inatiisa amba walaashi amba inaadeertii u guursado ma jiro oo ku faraxsan waayo waa Mooryaan waa out of human dignity waa qof aan bili-aadanimada waxba ka aqoon oo wayla sida waylka u nool marka wax farxad la yiraahdo warkeeda badaaye maalin dhexdaasa oo maqlay arrinkaas oo aan ka hadlo waxa Ilaahayow riyo nooga dhig riyo Ilaahow nooga dhig laakiin run bay noqotay oo Mooryaankii uu yimiday oo Mooryaantii Muqdisho joogto dhan waa la soo raacay oo dhalada Jabuuti baa la soo degay diyaaradaha lagu yimiday oo 500 oo milyan oo faranka Jabuuti lagu cunay dalka aad aragteen sida uu yahay xaarka dhex fadhiya dadka meesha fadhiya wuxuudiiba halka lagu cunay marka Mooryaankaasi anigu kuma faraxsani laakiin guurku waa calaf وانا قدر كإلهينا لما ديدي كراو نكاني وانين صوماليات اساقابا الصوماليا هدي ودي قويسكي كمين نقضي ونمعاد الله دوقايو ومالين قرى مليونير كون نقضي تاجر كون نقضي هلا دوقا وا صومالي إذن مركي ورا صومالي ماشي ما تشوقيني يونايتد نيشن بها يدقل كين عمر جيلا جمعية قربان كان عيساي وميل عدي صومالي وجوقتين ما جرتو مركا وانين صوماليات لكن هدنا وا Mooryaan marka Soomaali waxaan ka codsanayaa inay noo soo duceeyaan oo noogu duceeyaan idin qofkaad laba cisho dhaqankii la nooshahay dhaqankiisaad yeelatay inayna gabadhaasna Mooryaan noqoriyada lafteedu noogu duceeyay ummadda Soomaalida ee Facebook aytamaya ee waxa xun ka hadlaayay in la dhageysan kareyna waxaan leenahay wuxuu waa qadarka waa inaad ogolaataan wa biqadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala إنه عمر إسقى إسقوا فلان معارض وحي معارض كقوان لهايين بإسقى Mooryaan كان ينوقف تينك ومدي Soomaaliyeed ملك استوي شوغان بإسقى أي عندي كسوت شدي وما أنت ملك استوت قشوا وحلقها اللي يجيبوتي مركا Mooryaan كان هول بدن وينوهيا مركا كلا أذكرنا مجرته عيدا هلا يري تاس يعني وحي وحتري ساي مجرته تكله إسماعيل عمر Geelle waxaan moodi jiray inuu dawladda Soomaaliyeed uu nacab yahay oo markasta waa kii dawladda Soomaaliyeed kolbadhan uu jiiday kolbadhan uu jiidi jiray laakiin imika waxaan ogaaday waxa uu nacbaa inay daarood ahayd wuxuu yiri dayr baad riday Xasan Dhiiqow waa Xasankii Mooryaanka saaqidka ee siyaasadda ku saaqiday ee qabiilistaha ayuu ku leeyahay dayr baad naga riday horta farmaajo dayr ma ahayn waxaad farmaajo ku haysatana waan garanayaa farmaajo wuxuu ahaa nin daarooda oo constructive reerkan daaroodku waa reer wax dhisa oo dawladda sida loo dhisay yaqaanaan adigu soo waxaad jeceshahay destructive-ka kuwa wax burburiya ayaad jeceshahay adayr iyo diir maca shakliha reerkan daaroodku waa constructive waa dad fahamsan dawladnimada iyo sida loo dhiso iyo qarannimada iyo karaamada iyo sharafta iyo haybada iyo standardka ay leedahay dawladnimadu fahamsan weeyaan taasaad isku fahmi weydeen waxaad sabab ka dhigatay farmaajo Eritrea ayuu u tagay Xasan Dhiiqo markii labaad buu tagay oo wuxuu u tagay ciidamadii waa la dilay oo lahaa beenta Soomaalida uu sheegay uu nafta ku soo celinay nafta ayuu malaha ku soo celinay uu saga sheegay oo ciidamadii Soomaaliyeed halka way dhamaadeen haddana isagoo tagayo ciidankii la hadlayaan arkay marka waxaan sida malaha nafta ayuu ku soo celiyaa takale reerkan daaroodka cugdada ku haysa waxaad kaga qaadi kartaa ma jirto Kenya ilaa ay Galiile ay joogaan dawlad wanaag baan nahay daaroodka reerka ogaadeen ka la yiraahdo dawlad wanaag baan nahay dad aan walaalanahay way
oo isdhex gallo wax naga dhaxeeya ma jirto adiga mooyaane adiga uun bay kugu kooban tahay xumaanta iyo xiqdiga iyo xaasidka iyo caloosha waxaad ku hayso waa wax adiga kugu kooban ee la dhimo anigu reerkaan hay adigu reerkaa tahay awowgeen ceeleeyaa la yidhaahdaa wuxuu ku aasan yahay ceelaayo gabadhii ugu horreysay oo uu dhalay waxaa guursaday reerka la yidhaahdo harti baa guursaday waxay dhashay axmed iyo maxamed iyo maxamuud oo warsangeli iyo dashiishe iyo majeerteena markaa dad aan walaalanahay weeyaan daarood dad meel aan kala tagayna maaha wax wanaagsanna wayna tareen dowladdii jabuuti markii dadkii keenay iyaga siyaad barraa keenay allaha u naxariistay sayidkii radiallahu canhu waraxima allaahu waju sayidkii baa keenay dowladda jabuuti 250,000 oo qof iyadoo jabuuti tahay ayuu maxamed siyaad barre ogolaaday inaad go'daan inaad dowlad noqotaan weliba idin taageero dhaqaale military iyo dhaqaale lacageed iyo ku siyaasadeed iyo weliba dhakhaatiir wax walba idin keenay siyaad barre si aad ugu baahan cid kale halka xuduudana uu soo fadhiisto libaax halkaas uu ka tahay cadow oo dhan iyaga ayuu kaga baqay dowlad buu ka dhigay maxamed siyaad barre reerka mareexaanka la yiraahdo anigu had iyo jeer waan taageeraa waxaan ku taageeraa waxayna tareen waxbarashadayda iyaga ka dambeeyay aniga oon ma ahayn 100 markaa wax baratay kuwa camuud ku jiraana welfare bay ahayn bilaash bay iskuulada ku dhiganayeen kuwa muqdisho joogaana lacag baan qaadanaynaa anagoo ardaya walaalka baa allah u naxariistay ninkii maadeerkaan walaalka idris cumar geelle ayaa madax ka ahaa waliba ragga dhaqaalaha dowladdu ay noo soo marinayso xafiiska danaha Soomaaliyeed mishaar baan qaadanaynaa oo dowladda Soomaaliya mishaar la siinayso anagoo arday anagoo iskuulka dhigana mishaar welfare baan qaadanaynaa lacag baan ka qaadanaynaa muqdisho dadkii sidaa noo galay weeyaan Soomaali kuwii sidaa noo sharfay weeyaan daarood kuwa maanta inta halkan timaado aad tiraahdo dayr bay heedo dayr baad ridi xasan dhiiqow waa sharaf darre kugu tahay adigay kugu tahay laakiin annagu sharaf iyo karaamad baan u haynaa iyo waxayna tareen baan u haynaa reerka mareexaanka la yiraahdo uu nala yaala cadayta iyo cundhuufa ay degan yihiin ceel mareexaan baa ku yaala buur mareexaan baa ku taala ceelkooda ciiso biyaha ka cabaan halka cafarta isku leenayaan ceelka mareexaanka biyaha laga cabaa buur mareexaan bay xooluhu daaqaan wayna nala degan yihiin dadan walaalanahay weey cuqdad baa adiga ku hayso waa cuqdad baa ku hayso waad cuqdadaysan tahay waxaanad ka cuqdadaysan tahay daaroodku waa dad mufahamiina oo wax fahma way ku fahmayaan dowladnimaday fahmayaan taasa diidaysa adigu waxa rabtaa mooriyaan aad isticmaasho kuwii shalay meesha kuugu yimid mooriyaantii ku soo ururtay ee mooriyaanka kuu keenay baad rabtaa waxaad rabtaa dad aan qarannimo iyo dowladnimo iyo sharaf iyo karaamatoona lahayn waxaad rabtaa xasan dhiiqo oo kale ayaad rabtaa iskuulka camuud markaan dhiganayay galaaska koowaad ee boorama nin baa dhigan jiray xasan la yiraahdo xasan ilaa jaamacadan ka baxayay uu galaaska koowaad buu ahaa garweyn buu ku yeeshay xasan shiciro baa la oran jiray wuxuu ku saaqiday inuu galaaska labaad gaadho buu saaqid ku noqday halkaas ku saaqido noloshiisa ku dhameystay xasan dhiiqana waa saaqid xasan shiciraad la mid tahay xasan dhiiqo marka dhiiqo ayaad faraha gashatay Cumaro waa dhiiqo waa dowladda Soomaaliya imika waxaad gacmaha kula jirtaa waa nin xaar faraha galiyana way uraya dowlad maaha waxaan waa qashin mooriyaan ururtay laakiin adigii baa mooriyaana adigii baa maha salaad ka daran maanta ninkii mareexaanka waan leenaynaa iyo waan dilaynaa oran jiro bilaababa inuu dilo maanta oo mareexaan laayo adiga ka daran sabab alla sabab ad ku aflagaadaysa daaroodna garan mayno anigu caaqilka reerkaan ahay chief caaqil baan ahay Soomaali waxaan kaga duwanahay caaqilku chief caaqil quraan leenahay iyo gaas qura afkii dhaqankan ku hadlay waxaan ka raali gelinayaa beesha daarood xunqaacadii uu idinku xunqaacay Ismaaciil Cumar Geelle xaqiiqdii iyo cuqdadii iyo caabuqii wacaloosha ku hayay uu xajisani kari waayo xumaantii uu qabay beesha daarood ayuu xunqaacay laakiin anagu kulama jirno anagu sharaf iyo karaamad baan idin haynaa iyo wanaag iyo kalgacal baan idin qabnaa lamana qabno waxaan u akhriyay uu ka sheekeynayay mooriyaanta iskaga dhisay waayo mooriyaantii de mooriyaan bay u keeneen iyo 100 kale oo diyaaradda soo saaran oo mooriyana oo doonayaan halkan inay dhiig reer Jabuuti dhuuqaan
إلهي با كاقبان دادكني إلهي وحن كون نقاني إنو أمدي سو قرمدو مركا دباتة انت الله يكون عدو أمد رير جبوتي وي دباتي سيهن دلمي با هايستا ما هالي كريان كي هالله وانو دادو وحن سلام يا خضر حيد إسماعيل عمر قيل وانو دادو وقصب قف كستو هالله هديك لنرشا لغو عذابية ولا عذابية دادكو ديقي يكون نوليهن دادكو نول حنبي يكون نوليهن دادكو قاجي لنوليهن دادكو فخري بي لنوليهن دادكو وحبرشلان بي لنوليهن دادكو بيالان بي لنوليهن ماشي waa kulay environmentka electriga Djibouti walaalkii baa haysta 1980 baa uu noqday halka loo dhiibay waa madaxweyne aan dhacayn isaguna halkaas uu haysta madaxweynaha Paul Biya la yiraahdo ayay isku mar wada qabteen meesha marka waa niga arkayo waa umada dulman qabiil raariyar jilibka anigu aan ka dhashay baa dulmay aniguna waxaan hadiye jaro hadlaa dadka شعب كانوا هلا وروحني وظلم ظلمك كداي ظلمك كجوج ومضى دير ضدك جار كان ظلمك كجوج إلى هين دبيه سيبان كبرينا إنه كوسو دقدقو وأي أمدي واد دبتي أمدي واد عداد السي أمدي سكرات بيت شوغان أمدي محل الكران أمدي من في السكران دقالوه جينا أديك يقويس كاغا قاطي هو حلو حيستان متشرو أسفل سافلين بيتاغيين دادكو وقرية اللغينايا إلهي أمدها كاسا قارو أمد الصوماليين ورؤسو دعاي أمد رير جبوتي دور مير هوري وايدين شاقي إن هالكاس الدول منجرو ورنوسو دعاي وإلهي نوبريا إن إلهي سيقور مدك